In si dhexdhexaad ah aad u cabto bunka ama qaxwaha waa badqabka dhanka caafimaadka, laakiin inaad cabto maalinkii 3 ilaa 4 koob oo bun ah ayaa leh faa'iidooyin caafimaad sida ku cad daraasad ay soo saartay shirkadda BMG. Daraasadda ayaa lagu ogaaday in dadka caba bunka ama qaxwaha badan ay yar tahay halista ah inay ku dhacaan cudurrada beerka iyo qaar ka mid ah noocyada kansarka, iyo waliba inay yar tahay halista ah inuu qofku madaxa dhiig kaga furmo. Balse daraasaddu ma aysan caddayn cabidda bunka uu sabab u yahay arrimahan. Daraasadda ayaa muujinaysa in hooyada marka ay uur leedahay misana aadka u cabto bunka uu waxyeello u geysan karo. Khubaradan ayaa ku taliyay in dadka aysan ku kicin cabidda qaxwaha iyagoo caafimaad ka doonaya. Cilmi baarayaashan oo ka socday jaamacadda Southampton ayaa waxay soo ururiyeen macluumaad la xiriira saameynta uu bunku ku yeelanayo jirka bini'aadamka. Waxa cilmi baarayaasha ay tijaabo ku sameeyeen 200 oo daraasadood oo intooda badan laga sameeyay saameynta cabidda bunka. Marka la isu barbar dhigo dadka aan cabin bunka iyo kuwa maalinkii caba 3 koob ayaa dadka caba waxa la ogaaday inay yar tahay khatarta ku aadan inay ku dhacaan cudurrada wadnaha ama ay u dhintaanba. Faa'iidada ugu xooggan ee laga dhaxlo cabidda bunka ayaa ah in hoos u dhaca halista inay qofku ku dhacaan cudurrada beerka uu ku jiro kansarka. Hase yeeshee, Professor ka mid ah macallimiinta kulliyadda jaamacadda ee Southampton ayaa sheegay in daraasaddan aysan tilmaamin in cabidda bunka oo kaliya ay sabab u tahay yaraanshaha halista cudurradaasi. Waxyaabaha lagu ogaaday daraasadda ayaa taageeraya daraasado hore loo sameeyay oo ku saabsan cabidda bunka. Daraasaddan ayaa ku talinaysa in haweenka uurka leh aysan cabin maalinkii wax ka badan 200 milligaraam oo bun ah, sababtoo ah haddii ay cabaan qaxwo badan ayaa waxa sare u kici kara halista ah inay ilmaha soo dilmaan. Waxa ay sidoo kale ku baaqayaan in loo baahan yahay in dadka caba bunka ay ogaadaan faa'iidooyinka caafimaad ee ku jira.